حبيبنا ألف صلى الله على قمر الكمال. حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا ونال ذر المعالي. ألف صلى الله باعث الآمال في ليل الحيارى. حبيبنا نوره جل رهيبات الليالي. ألف صلى الله على قمر الكمال. حبيبنا من سكن طيبا من سكن طيبا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waxaan ku jirnaa maalinta saddexaad ee mu'tamarkii lixaad uu soo qabanqaabiyo markaska Tawfiiq Islamic Center ee Oslo, Norway. muxaadaradii koowaad ee maanta ayaan bilaaban doonaa insha allahu tacaala. ciwaankeeduna uu yahay salafka iyo sida ay ugu diyaar garoobi jireen aakhiro. muxaadaradaas waxaa soo jeedin doona Dr. Maxamed Saalex. falyatafadal mashkuura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا هو ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المنزل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. كلن كخير كله كلمة ما أنت بإذن الله سبحانه وتعالى waxay ku dul wareegi doontaa saddex mixwar, saddex arrimood turjumaya sida ay salafu haadihi al-umma ugu tabaabushaysan jireen qaabilitaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo adduunyadan oo la faaruqo. qaybta koowaad waxay noqon doontaa aakharo marka laga hadlo sida ay ugu sawirnayd fakarka dadka aan leenahay salafu haadihi al-umma. kelmadda labaad ama qodobka labaad waxa uu taabanayaa siday ugu dadaali jireen in ilaahay subxaanahu wa tacaala gomadooda islaamka uu ku sugo oo marka ay dhimanayaan ay ku dhintaan xaalad markaa wanaagsan. qaybta saddexaad waxay ka hadli doontaa khaatamada wanaagsan, qofka in ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu oofsanayo uu adduunyadan uu ka tago iyo wax wanaagsan loogu khatimo, uuna ka dheeraado wax kasta ee runtii xumi u keeni kara. saa darteed waxaanu ka hadli doonaa biidni illaahi subxaanahu wa tacaala maxaa lagu aqoonsan karaa qofka markuu geeriyoonayo inuu yahay ahlujanna iyo inaanu ahayn. waana qodobka ugu dambeeyaan kusoo khatimi doona biidni illaahi subxaanahu wa tacaala. ugu horayn, meesha waxaa idinkugu qoran salafu haadihi al-umma. salaf markaanu ka hadlayna waxaanu tilmaamaynaa waa dadkii horreeyey, saddexda qarni ee ugu horreeyey ee ummaddan ka mida nebiga sala allahu calayhi wasalam, asxaabtiisa, dadkii taabiciinta ahaa, taabici taabiciin
iyo dad kasto ahlu khayr oo markaa naga horreeyay laakiin hadigii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo manhajkii sallallahu alayhi wasallam uu ka tagay markaa sidiisa u fuliyay dadkaasaan markaa ula jeednaa oo bimaana waa maxay dadkii naga horreeyay ahlu khayr kaanu tilmaamayna ugu horreyn marka laga hadlayo siday u arkayeen aakhiro wax la tasawuri kara maaha mar haddii ay maqleen qowluhu jalla wacala darhum ya'kuluu wayatamattacuu ويلههم الأمل فسوف يعلمون مرك الله سبحانه وتعالى قال هذا وكهل وحير اسكدا ها عنان ها راحيستان ها اسكدا يديشدان سيدا دونان ها أفكرين لكن وحا إيمان دونا وقتي الدنيا المركة يكتغي دونان آيات داس وآيات إن فربنا نقرنه لكن سامين قارا بجرت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وكيري هذا تنبيه أرنتان وحا لغو براروجينيا إن قفك مركا ويسيسية الدنيا دا ويسوسة تداريو ويسوك أكتيدا ودعو ونوعا ما آخر ذي آن وساء ملعسن إن أرن كاسوية أرن كفو غين كرا قفكي آخر كنا بيري كرا وحا لغو مقعابو يدي ديل إيو الدنيا جعيل إيو كدبا أورد يحي لميدا آيات موجينة سوين لبدا آيات أن كفر فرني قرآنك أي كلمة أن كفرني آيات الله الرئيس وحي تلمامس وأنفقوا مما رزقناكم الله سبحانه وتعالى وحي بحين سيجنلا والوقت با إيمان دونا نفعا لغا أقبل دونين إن ديب لوغو ديغا نولاشا ديب أن لغا أقبل دونين إن ديب لوغو ديغا ولو ساعة حال إلهي سبحانه وتعالى أقدارت أم آجاش أوسمي لا يستخدمون ساعة نقفكي كما هو رعنا ديب غادي عماي انت وقتها لقار وارتبابوا شيء سوس دياري اي آيات دي كلا الله هيد وانيبوا الى ربكم اسلموا له والالهي الله بتوه كان سما انت لقارين وقت عذاب مركا وسود دغو اذا مركا نقف حبان لقى دغيسن دون آياتها مركا مقلان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايدت التابعين تاها ارون هانتي سوى عن ودن سنجري آياتها الهي اي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلتها إن اسم مرورا كراما يجو أنا ندول استاجن أنا نهول جلين أنا كعمل فلين أرنت وأرن فقوي ولذلك الله سبحانه وتعالى مركو آياتها أسود الجي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسمي انتو صحابة صهر فريستي بو حسمي خطب جاحي حريجين بو جاحي قرب كذا أنا متكلو كل جاي مركز سيرة حريجين تنا دار كيسان وإنسان كي وبني آدم كي تن كقرب جاحنا وحيري وأجشيسي قرطو لمن لا كلو هرتي ذا ديغا وحيرة تنا وحو كفكريو يدي ديشي سم مستقبل وحو سليهاي وحو سنغارين بو مركا كفكري إنو قارو مركا وامحي أجشي أو سودو أو إساقي أجشي وحا لغا يابا إن ساعة نور دحيسا أنك قرطان لمن الله أعلم وحا لغا يابا قرطا ماشا نكبحين إننا نبض إنا كتاقين ماشا الله أعلم ما ندري وحا لغا يابا قار نوران دورا بقول سنة كدب إنا جري دون الله أعلم لكن وحا ليري إنسان كوحو كفكريا مشاريع ووين وأنا سود وين هذه وقفك أجشيسة ومعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام رنت دقيقة أبو هريرة حديث وحكسو أراري صلى الله عليه وسلم وكسو وريه أبو هريرة وكسو وري رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث له إلهي وعدري قف كستو بني آدم عمري سلقارسية إلا لحظة جر لحظاً سنة قفك مركو قارة بمعنى إلهي سبحانه وتعالى وحسيه مدكو فلن هدو اسدبا قبان لها هدو اسوان لها هدو دب اسسحي لها مدكو فلن بالسيه أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة إلهي وحسيه عذر دار بوحة عذر دار كوام محي وماشات كده إلهي يعني قفك wuxuu marmarsiyo lagama baahnaan doono yawm alqiyaama marka la gaaro intay ka dhacday ee sidan bay ahayd iyo arin marka meeshii furan maaha wa sallallahu alayhi wasallam hadith ajiiba oo macnaha uu ku tilmaamo weey ibn umar waxa laga wariyay inuu rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri maalin maalmaha kamida garabkayga intuu saa igaga qabtay wuxuu yiri ibn umar adduunyadan waxaad ku noqotaa qof socdaal oo maalin uu ka tagi doona oo caabir sabiila qofka musaafirkaana tabcan dadkiina hadda u yimid mu'tamarka nin walba uu og yahay inuu markiiba dhaqaaqi doono waxa laga yaabaa inaad sis
buuxda aadan meel kasta isugu ballaarin markii waxa leedahay maradaada weli meel bay ku jirtaa midaad u baahan tahay kaliya la soo baxaysa waxa kugu qufulan inaad dhaqaaqi doontid qaar baa tareenadu u xajisan yihiin kuwa baabuurtii already bazi ka buuxsaday kuwa diyaar garaysan tahay nin walba ogyahay inuu dhaqaaqi doono saadarteed lagama yaabo adoo dhaqaaqi doona saacado kadib ama maalmo kadib inaad meeshan guri ka kireysatay ay siisid adduunyadana sidaa ha laga dhigo sallallahu alayhi wasallam ibn umar wuxuu yiri isagoo hadlaya waa kelimad aad wada xifdisantihiin nin yahow haddaad arooriyeysatid ha sugin inuu gabalka markaa kuu dhaco haddii la gaaro waqti dambe oo masa ah oo gabalkana uu dhacana inaad subixii qorraxda ay kugu soo bixi doonto ha sugin waa maxay adiga dhan bixirxirnaaw adduunka markii sidaa loo sifeeyo adduun inuu gaaban yahay waxa laga fahmay kelimada addunya Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka cabir addunya waxa addunya loogu magacaabay min dana yadnu wax soo dhaweey ama waxay noqon kartaa shay aad iyo taafi oo xaqiiro marka aan la tixgelinayn haddii aad in yar ila miclaysatid xakaayatul anbiya markii Allah subhanahu wa ta'ala anbiyada uu ka soo hadlay nabi fulaan iyo nabi fulaan iyo nabi fulaan ugu dambayn nabi anbiyada ayaa wuxuu leeyahay ala lisaanihi uu ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka uu ku leeyahay إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ورددوا الدنيا ذن أتكون نوشيهين والراحة ماشا سقنان تأيجرتو ماشا اللفيلة يضدكو دن بمعنى أن سجين إن دوانكو والوارد دونه نولل دبنا أي دنبيس وأن سجين وآخرة وصل إلهي سبحانه وتعالى قرآن مركب كلية محمد بن واسع baa hadda ka hor nin wuxuu weydiiyey nin baa u weydiiyey waxaan ka hadlaynaa raggii salafka ah oo khiyaarta ahaa nin baa u yimid markaas wuxuu yiri niyo maxaad ku arooreysatay buu yiri iga waran buu saakay kayfa asbaht ka waran caafimaadkaaga maxaad la soo toostay saakay markaas wuxuu yiri maxaad u maleynaysaa buu qof maalinba kullama maalin la gaaro qorraxdu ay soo baxdo marxalo u jaraya xagga ay aakhiro xaalkiisu muxuu noqonayaa يعني كلما إلا واتنو يرينك شاعرك يسر المرأة ذهاب الليالي وذهابهن له ذهابا وذهابهن له ذهاب قفك وحا فرح قرينيا مالمه إني دقدقان لكن مؤوى كلما مالين أي قوضه إن أدي وحكا قوئيه هذا وحا لغايا بأينا نكون فكرين اللهين مال فلان وحانو بلامن دونا دورسا سوكلا لابد مال موت إيه تقي عمر جيني كجرانتها أدي إلهي سبحانه وتعالى كو قدر كونتن سنة إلا مال موت أما 20 سنة إلا مالمود أما 40 سنة إلا مالمود وجرتها ولذلك واتنو يري فما بالك فما ظنك برجل ومال والبابا مركب قرحده أي صوب بحده مرحلة حقا يا آخر أوسي جرايا يوحي لمده وأنا معنا رنتي دقيق يسلم فضيل بن عياض أيانين الله الله وحو يري نيو إمس الجير باتاي مركز لحدا سنة وحو لحدا كاس سنة سند بسند بكودي بيبيري sanad markuu dhamaadana sanad kale aad u sii gudbaysa buu yiri inta waxaad ahayd nin socdaal ku jira waxaadna u sii socotay xagga rabbil caalamiin maadaama safarkaagu aad u soo dheer waqtigii aad ilaahay la kulmi lahayd iyo meeshaad u socoto destination ku had gaar lahayd waa la gaarabay ninkii kalimadii runtii waxay la noqotay kalimad weyn markaas yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un ilaahay baan allah isaga u laaban doona markaas yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un macnaheedu ma taqaan markaas yiri maxaa la jeedaa wuxuu yiri waa inaad ogaataa in adiga lagu leeyahay adoon aad tahay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala adoon aad u tahay mar haddaad ogaatiin in adoon aad tahana in lagu soo istaadin doono ogow maad ogaatid in lagu soo istaajin doonana inay su'aalu ka dambayso ogow in haddii su'aalu ay ka dambayso aad ogtahana jawaabtii aad bixin lahayd diyaarso markaas yiri waayaha jawaab la isaga baahaa famal hilatu halkan ka bilaabaa buu yiri way sahlantahay buu yiri ana ku sheegay wuxuu yiri intii hore tagtay buu yiri 60 sano way soo khalaa waa ku dhaaftay inta umrigaaga ka dhiman buu yiri hagaaji noloshaada wax ka bedel khaladaadkaad hore u soo gashay dib ma ku laabanin wanaaga samaysay korsi wad arrinka marka wuxuu sabab u noqonayaa khalad walba oo ka dhacay gaabin walba oo ay kugu timid dib u dhac walba oo noloshaada ku yimid in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka bidoono wala dhaafi doono wa hadal daqiiqa 60 ka sano ku soo dhaafay khalad walbo ka dhacay haddaad garatid annaka lillahi raaji' adoon ilaahay inaad tahay adoonnimadana ay keensanayso in lagu soo istaajin doono istaajintana ay keensan doonto in wax lagu weydiin doono su'aashana ay u baahan tahay inaad jawaab aad u diyaarsasid
jawaabta keliya hel adoo hagaajiye ma tabaqa min umrik wa hadal daqiiqa Fudayl ibn Iyad ninka uu ku yiri Hasan al-Basri waxa lagu yaqaana nin aad iyo aad u xikam badan buu ahaa saddex nin oo culimo ayaa meel isugu yimid wala iswareystay nin baa la weydiiyay waxa la yiri aakhira markaad ka fakaraysid sidee u fakartaa ma gididiishaada ka waran ma isu soo dheeraysaa markaas yiri bil markay dhamaato waxaan israahada waa dhiman doontaa markaas loo jawaabo qolihii kale oo meesha fadhiya u jawaab waxay yiraahdeen bil miyaad ba ku fakartay inaad noohaa waxa tahniyo nin adduunyada siiyay ka kale doorka ku yimid markaas la ka waran markaas jimca marka la gaaraba waxaan istiraahdaa waa dhiman doontaa bimaana meesha annaga aan ka xisaabano weekendiyada iyagu jimcay ka xisaaban jireen jimca marka la bimaana isbuuc weeye isbuuc markuu dhamaadaba waxaan istiraahdaa waan dhiman doontaa markaas yiri nin adduunyada jecel baa tahay bir iska daa kii kale door ku yimid waxa la yiraahdaa adiga ka waran markaas yiri maxaan ba ka halaabi mar hadii nafsadeyda ayba ku jirto gacanteeda ahayn oo Allah Taala ay gacantiisa ku jirto maxaan ka halaabi bimaana waa maxay ka waran hadii wax alla wixii adiga aad u baahnaan lahayd mesela waxaad u baahantahay inaad masaariif iyo qarash aad bixidid hadii qarashii qof kale ku hayo uu ku leeyahay intaan u baan ku siinay intaan ku siin maayo kuma xisaabtami karto qof kasto budget ku leeyahay waxa leedahay waxa aan bixin doono ma garanayo maxay hebel buu gacantiisa ku jira qarashkaas waa kada dawaalay mar hadii nafsadaada marhuuna ay ku jirto biyadi Ilaahi jalla wa ala inaad adiga ka talisid ma sida saadarteed waxa khaldan marka qorshayaashan sameey 5 sano kadib 10 سنوات 20 سنة 30 سنة اللي بعدها واللي بعدها إلا أنت صوصعت إن حسابا كريما ماشي مركا كم مقتل أبو بكر المزني أيا وحيري إصاغ هلا وحيري هداد ربتد بيري صلاة أتكن يسيد إني وحكترته مركا صلاة الله أكبر الله ذا هاي واحد اسكوكو فشا أو مسكح ذا أدجلسا صلاة كدم بيسين هذا أنتكن دوني طبعا هذا دي لا أقيمه دور كير كدي مركا لا أقيمه haddii nin walba mid isku program gareeyo salaadaas aan tukanayna salaad ka dambaysa inaysan jirin dabcan wuxuu qofka salaada wuxuu ku tukanay bikul khushuuc waxa ila soo xusuusataan saxaabadii markii gacanta lagu ay ku dhigi jireen nimankii kufaarta ahaa sida Khubayb oo kale yiri waxaan u baahanahay intaydan idilin ka hor laba ragco inaan Ilaahay u tukado waatan ilayhi ashaab ahlu siyara markay sifaynayaan wuxuu tukada laba ragco intay dhirir ay ka qabaan ee qurux intay ka qabaan ee khushuuc intay ka qabaan aan hadda hadii lagu yiraahdo waa lagu dilayaa hal ragcad tuko ragcadaas waxay noqonaysaa ragcad cajiib macnaha dhan waa ku dhaad biidin Allah subhanahu wa ta'ala ka dadagaya adoo og inaad dhaqaaqi doontid marka wuxuu yiri Abu Bakr al-Muzani idha aradta an tanfa'aka salatuk faqul la usalli ghayraha waxa tiraahdaa salaadan salaad iga dambayn mayso waa kada dawaalay wali waxaan milicsanaynaa hadu haulaa salaf Abu al-Ma'ruf al-Qarqi salaadii baa la gaaray nin baa waxa la yiri salaada naga bixi salaadii markuu darka soo hori imaamku waxa lagu yaqaan inuu dadku yiraahdo istawu sinna markaas wuxuu yiri salaadan dado hadaan idin dujiyo salaad kale idin ka bixin maayo yani isagu wuxuu ka wadaa maalin kale inaan imaam idin noqdo diyaar uma hiin salaadan soo idin ka bixinaya waad igu khasabteen macna saas oo kale والله معروف الخرق والله مركز وحيري وما واحد isugu sheekeynaysa bir salaadan salaad ka dambeeyna dukan doonti والله macna waxa qariib la noqotay in salaad tukanay uu ku fakaro salaadaas markuu ka baxo kan doon bimaana dadka agtooda waxa ay ogaayeen talaab markay qaadayaan kelmadan markaan sheegay kelmada ka dambaysa inaan sheegi doono waa inuu shaki ga galo marka laga hadlayo aakhira Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu xiray وهكذا دوالي وحيري ما أذا واحد يسوق شكاني سنة تكن دونت وحيري إن هذا هو الأمل يدي ديش الذي ذي أسست ما عرفت قفك إنه أسست تدارية ولا ديدي إسسيس كلا إسسيني الدنيا واتابيري هكو فكرين بيري أو واحد كو فكرتها صلاة مركز تكون إسسيني تاعي قفك أنت أسدا وياي طلبت وقاد وسلي هذه آخرتها ومد قدام بيسي ومركو ذلك ربي وإلا أنت الله ذا هاي marka biidin Allah subhanahu wa ta'ala sanadka dambe ayaan mutamarka isugu iman doona sanadka ku xiga ayaan wax ka bedeli doona wali waxaan ku fakaraynaa waa maxay waxaan ku darsanay nolol aynaan ogeyn iyo qorshe aynaan ogeyn ajal gacanteena aynaan ku jirin baa anaga samaysanay waan arin marka ay diidi jireen salafa hadii umma arin khuturadeeda leh ibn Umar al-Khattab radhiyallahu waxaana soo maray muhadaradii hore inuu yiri mar hadii baad ogtahay in ay barnaamij saasoo kale uu ku sugayo ah dhimasho qofku waa inuu tabaabashaysto
سادرت بحر تباب شيء يقول كو إيمان يا أنكلية قف إنه ددالة ولذلك هذا الكيسوحها التأني في كل شيء وحكست قفك وصمينه هاي ترتيب صدق لكن مركا خير لقاها الله آخر مركا لقاها الله قفك وأنه سن ترتيب سن بمعنى وامحي صلاة بوبسي وقتي إذا كنتكو صونك وقتي سكوصون ولذلك حد بالما قارب يحكي لنا وسنة كدي بحجين دونا حد بالقول لي هاي أدو أن العمارة ليست بيدك عمرك قعنت هذا كمجر إليه سبحانه وتعالى هاي مركب الدقائق وقتي سال لقارب ولذلك علماء له حج كديب والله دقان كرا أرنك واحد أركيسا إن نوعا ما سوف إن أرن فوق نوعا ما إنوي هاي وهكذا دواليك علي بن أبي طالب أدبو حكم بدنا هذا ليس حكم ذا إن الدنيا قد ارتحلت الدنيا دي تكتي مدبرة إيضا دبر جيد ذي وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة آخرا وإن سوقها بشبيل ولكل منهما بنون الدون كان وحو الله هاي كوا مركها الرعسن آخرة وحي الله هاي كوا مركها الرعسن وحاد نقطان كوي آخرة الراعي هنقرن كوا الدنيا الراعي وأنا موضوع أن لا أنه ولا دار الآخرة خير ماشا سكوسا ليسين هو انت مركان فهمني فكر كودو مركو ماشا كل اسنا وحان وجد بيننا مر هدي ان اسلام مال دغنا ارنكا waxa aan isu sheegayna maahan wax cusub maaha waxa kaliya adduunyada ay ka wada simanta muslim iyo gaal mu'min iyo kaafir munaafiq iyo qof dhamaan xitaa alxayawaanaat ay ogyihiin in la dhiman doono taa hadalka ma taagna laakiin waxa dadku ku kala duwan yihiin hebelna wuu ogyahay inuu dhiman doono hebelna wuu ogyahay inuu dhiman doono laakiin waxay ku kala duwan yihiin sida ugu tabaabashaysan lahaayeen ay ugu diyaar garoobi lahaayeen maalinta ilaahay subxaanahu wa ta'aala la kulmi doonaan hadda waxaan u gudbaynaa marka maadaama arrinku uu sida aan noolaha adduunyadan noloshayda inta ka dhiman maxaan sameeyaa waxay sameyn jireen marka wax lagu magacaabo wasaa'ilu thabaat yani waxay la iman jireen waxa ku bixiya u sahla inay gomadooda marka ay sugnaato mar haddaad ogtahay inaad daqaaqada inta waxa lagaga baahay marka inaadan tazaczucaan kugu iman bimacna waa maxay waa inaadan labaclabayn waa inaadan labalabayn waa inaadan maalinna aan laga helin masaajidka maalinna aan laga helin diskoteega waa in noocan ma aad noqotay qof Allah subhanahu wa ta'ala ku xiran waa in maalinna aadan tukan maalin dhigin oo aad Allah subhanahu wa ta'ala ku xiran tahay maalinna gabadha muslimada inay soo dadamaha maalinna ay meesha iyadoo qaawan ay martama bimacna waad ogtahay saadarteed waxa loo baahay inaad la timaado thabaat ثباتك مركا ثبات waxa ula jeedaa ku sugnaanta qofka uu ku sugnaanayo diinka Ilaahay sidee igu suurtoobi kartaa inaan diinka Ilaahay ku sugnaado waxaan maraynaa biidin subhanahu wa ta'ala aan isla tilmaamina dhowr qodob oo nagu caawin kara biidin Ilaahay subhanahu wa ta'ala jalla wa ala dhowr qodob oo nagu caawin kara in gomadeena ay ku islaamka koow quraanka inaan qaabilno waxa kaliya ee manhaj aan ka dhiganayno دستور أن كدجانين أن ربنا إنه نهجو أن ربنا إنه نتصوح خيرا شرطنا نجرب إن كدجنا كتاب الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى قرآن كوحكير وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة مركز سحر كذلك لنثبت به فؤاده قال هذه بهذا شو حير هذا قرآن كان مالين والبابا مالين والبابا الصورة بسودك تلقوها isagoo duuduuban mar kaliya maxaa loogu soo dajin waayay rasuulka sallallahu alayhi wasallam markaas Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri sababta aan u yaryaraynayno aayadda mar ay u soo dagayso muddadaana ay gaartay ilaa 23 sano ilaa 24 sano waxay tahay linuthabbita bihi fuadak ina laabtaada ku sugno bimacna hadii macalinka lecture-ka bixinayo intuu soo hor istaaga ardada وهل مالين بوغي la bixin laha scienceska min ألفه إلى يائه لما تضو مالين كلي كسيو وحلا يقفكي وحنقنا من أخذ الكل فات الكل ويحاول إنه كتجدون ما فهمه لكن مالين مر مركل لو فهم سيو هل فورمولا لو فهم سيو مالين تكلنا جبتر لو فهم سيو مالين تكلنا وح لو فهم سيو ستر ترتيب مادة كو جلي دونتا قرآن كان واساس ترتيب الله سبحانه وتعالى وتربيه وإنه نقول منها التربية ولذلك لنثبت بفاد القرآن كإله سبحانه وتعالى والسجا ضدك كسجا رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو وحي يسوي كسو دادجي أي مر وحي مركب وحي صلى الله عليه وسلم وحي هذين شيطان كي وحيون جري بكتجي رسول الله صلى الله عليه وسلم مركب أركا ولول بكبير ترنتي وطن آيات بسود دكتور وحري ما ودعك ربك وما قلا ربك كامتج محمد كمان عرون ولا صغير ولول بان نقول يمد وحنقرنا القرآن مشكلات تمد قرآن كان أقرنين
quraanka marka la aqriyo macnaheeda maaha kaliya iska barakayso quraanka rogrogo raatib ha ku noqdo ma aayadaha iyo macaanida aayaduhu ay xambaarsan waa in la dhuuxo imisa rasuul ilaahi subhanahu wa ta'ala intuu soo diray la gumaaday la horaray la hor istaagay wax kasta lagu sameeyay sidee u sugnaadeen arag inna ma'i rabbi sayahdiin ilaahi bay la jiray isaga ay hanuunin doona nabi yusuf mushkila ku imanaysa ma'aad allah innahu rabbi ahsana mathwaay marka duruustaas aan milicsano runtii waxay noo soo baxaya sahay la quudan karo na marsiin karta wadadan dheer no biidin ilaahi subhanahu wa ta'ala na gaarsiin karta allah subhanahu wa ta'ala arrinka labaad ee qofka suu kamid inuu sharciga ilaahay iyo amalka saalixa uu laazimo waxa u daliila ayadi ilaahi subhanahu wa ta'ala uu kiri fi surati ibrahim yuthabbitu allahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إلهي سبحانه وتعالى وحو سقيا الذين آمنوا كوا مؤمنين إلهي وحو كسق دونا بالقول الثابت قول ثابت وامح كلمة لا إله إلا الله بلا كرسين دونا آخر كوحا نوغو إيمان دونا بإذن وتعالى كلمة ده قفك مركي عملك صالحة ودائما سيدة إلهي وافجين دونا توبة وناكسن إيه بمعنى ختن كوناكسن إنه لا شمرك الدنيا وكتجيو مرك إلهي وكسوجا لا إله إلا الله وأدهليل دون تهداد ما أنت صلاة إلى ليس وأدهليل دون بإذن الله سبحانه وتعالى ما أنت توحيد كهدو مخلص نقضه وأدهليل دون تهدي صون كلا أذن كدرين وأدهليل دون تهدي إلهي سبحانه وتعالى في السر والعلن مرك أي ضد أدمو قتيد مركات كليات تهب إلهي سبحانه وتعالى مركات وأنا أرن هنتي مهمة دي سلم مرك واحد تلمامنا إنير مرك الله إنها الالتزام بالعمل الصالح إن يروا أن ملعسن سلف هذه الأمة dadkii akhyaarta ahaa ee naga horeeyay sameyn jireen Umar ibn Khattab radiyallahu anhu dhacda ayaa timid waxa la joogaa masjid rasuulillah sallallahu alayhi wasallam salaas waxba la joogaa sanadku wuxuu ahaa 23 hijriya ayaa la marayaa sallallahu alayhi wasallam Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yimid dadkii salaada ka bixiyay عادة وحواهيد عمر بن الخطاب أدبح أجعل إنه أقريه سورة يوسف سيب فجر كل بيجنجري مركو قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وأيدي نبي الله يعقوب يسوقوا آدياد والبهار سن والولي رادين النبي الله يوسف يري مركت هيساي ومن أن أدينيو أن أشيغني الله سبحانه وتعالى مركو آيات أمريو أيانين ملعون وأبو لؤلؤ المجوسية بأنتو ضدك ساء صور دحقادي يمد مركا وحو كتاغي انت سو مديبو كتاغي إلا لح طعنات بكل فتوى ولا شيء عمر الخطاب مركا يماشو كل دعاي مركو دعاي كدب طبعا ومد وحوي نوعا ما خير كذا iyo hogaan keeda markii ba saanu kullumin hogaanka noogu weyn iyo qiyaadada ugu weyn aan ka hadlaynana waxa laga heli karaa fi athnaa'i salah markii Abdurrahman ibn Auf ba hormar salaada ka bixiyay Umar Khattab ala ordo guriga la geeyay xalad xun baa lagu jira imaamul muslimiin amiirul mu'miniin baa la dhaawacay nin baa si gardara ah uga xadgudbay meesha isagoo jiifa oo miirka uu ka tagay ayaa waxa Umar Khattab noocan ma inuu nool yahay in kala ma naqaan ilaa ma jirin measuring device kamaanta dadka isticmaalaan lagu ogaado wadnihiisa ma shaqeynayaan ma ogaan karin markii waxa la yiri saan ku baraarujinaa salaada la sheegay maxay Umar Khattab waxa la yiri qalbigiisa wuxuu ku xiran yahay oo ku koblay fulan yahay salaada hadii la sheega ayaan ogaan doonaa markaas as-salaa markii uu soo buu markaas ma la tukaday markaas ha salaada waa laga baxay salaada markaas as-salaa umad aan salaadi ogeyn khayr kuma jiro ninka waa amiirul mu'miniin wala dhaawacay dhiigiisa daadanay xitaa waxa la sheegay inta uu meesha uu yiil waxa uu yimid niman dadkii markaa muslimiinta dhalinyaradii baa u yimid waxay u keeneen caanihi markii beerkiisa hoos buu u soo dhacay yaani markii jirkiisa wax alla wixii daaqalka ku jiray hoos bay u gudbeen oo markii uu iseen waaye isagoo aad iyo aad meel xun maray xaaladii waxa la gaaro dhiman lahaa laakiin wuxuu la soo tagay as-salaa qalbigii salaadu ku xiran yahay qofka isaga ma laga yaabo inuu laa ilaaha illa allah uu sheego إلى صلاة دم باب ترجمة ذا وحيتها الله أكبر يا السلام عليكم أنت أود حيسا وحا أود حيوان محي بين لابتيها من ألفها إلى ياء صلاة أنت سمرك أنت سكوهرس أنت وح كلام نفسنا التكبير ثم التسليم وأرن هنتي عجيب بتهذا له وفق صلاة وجنا الله سبحانه وتعالى عمل صالح وفجنا مثال كلام إن صلاة سوي إلى الإنجيلين
وحموجنا صلى الله عليه وسلم مركو يري جعلت قرة عيني القبوس جيجا وحا أن كنا في السوء إلهي وحو دحيا له صلاة ولذلك وحا حديث الله شاقي حديث بلال مركا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر مركي مروك أي كنت ماذا وعريري ودرامة ضيق ودرامة وعديه جري أريحنا بلالو وحا جرتا ضيق بندرامة عريري بندرامة صلاة النقر راحة بلال بأنتو استقدت صلاة مركا وأدمي جري سابك مركو تكد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنفس جري أرين سهلنا ما هاي وحنا هذا مركا ابن مسعود إنه يري مركو كهل صلاة جماعة وحير وحان أركيب وما يتخلف عنها إلا منافق صلاة جماعة قف كديب وقرد عيوة منافق بيري أما قف منافق نما أي كجرتو وحديع جرتو بيري إنك نجمدا السوق حنوسن إن لبض قربول لقى سوق قلو أول مركا الله كانه لسود دهيو لاستاجية صفقة صلاة أوتو كذا وحير هدان كوينه ضدك يعني قف جماعة مركا اللي تكانه هدان وين قروح أنك نجمدا وحن كنت مجنين منافقها ومضى وصاصة هاي هذا وحلقة يا با يدا مسجد كلاجا قديم يقف إنه قرب مرة وحلقة يدو أدنك أوسعون ما شاك وقوة على جيابا شاك هذا ليتها كان حديث خير حديث خير هدوءها الهواء وهكذا دواليك ومضى صداءها مركا هلا يا بن خاتمة إليه سبحانه وتعالى وهجاجيو وحول ليها أحدهم سعيد بن المسيب وحيل مالنتان إسلامي إلا يحضر أم وحول ليها وانك كلا وحيل سعيد بن المسيب أفرتن سنة أو حرير بيري إيجا تجين صلاة الجماعة أفرتن سنة صلاة الصبح وتاجين أو الظهر عصر المغرب عشاء جماعة كنت كذا أفرتن سنة سانك وحساب تمي كرني سهل ويعني عادية ما وسلف ومن هؤلاء الناس قاركود مركز لقاقة شيكي ما بسهل نيمبا قاربة وحل الشيكي بين المغرب والعشاء وحول جدا بين العشاء وصلاة الفجر أنت ودي حيث القرآن كل ما أنت صجار نينك وحول لي هاي أفرتن سنة حرير صلاة جماعة ما دافن بي عامر بن عبيد الله أيا وحو مغلي مؤذن كأدمية مركز واحد اللي روح حنوسنا أد وحنوسنا مركز اللي ما سكت جوكتي وحير هلا قاده سكت جوك مركز سير سين وجوجا بير أنا مقلية حي على الصلاة على الفلاح إلهي سبحانه وتعالى بقى إياه بير وين دقاقه قفك مركو ددال كاسو كلا أوسم خاتمة دي صدم به مركو أدبيدا كتجيه إلهي سبحانه وتعالى سوق دونا وأنا أرمي مدة إذا مركز الله دقدقة صلاة وحموجنا أنا هذا وحن كهل لنا صلاة للتكذو وايد أفسسنا جماعة كهل الجرين جماعة وايد أفسسنا ده وحي كهل الجرين إمام كمركو الله أكبر وليه أن الله أكبر ما كتب ديه دونا مثل تكبير تأدافي دونتا عندك يسنا قاركود وحي ليه عدي بن حيه ما دعين بير لقب بالله ما لنتان إسلام إلا أي وقت كان عدي بن حاتم تاريخ سؤال لا يقانا ما لنتان إسلام بير إلا يحد ما دعين إنه مؤذن كأدمة إلا أنا مسجد كجرا مويان مسجد كان دحتاجنا هبيل وأنا على وضوء ويسنا وإيه دورانته أنا ديار أي مؤذن كأدمة جرا وحلقة يا بعدين كان نقولون أهل خير كا مركز الأدمة كدب إنه ويسأل قاربا مركز إمامك الله أكبر يراه كدب إنه ويسأل ويقول لي ما لنتان إسلامنا إلا يهاد ددر ما دعين بير إنه أدمي مؤذنك إلا أنا مسجد كجرا مويان مسجد كجريتان كي كليا ما هان إلا أنا ويسئ دوران تامويان وأرين ذلك كذا المركع عليه سعيد بن مسيب وحوليه أن سعيد وحوير هذا صدّن سنة إصام مرتب بيري أيضا مؤذن كمركو أدمي أن مسجد كان جوجا بيري ولذلك حديث كان حديث بشارة له ويدقيسته الإمام الترمذي وحوريه شيخ ناصر الدين الألباني حديث كان وحكت إمام إنه حسن وياهي وحديث احتجاج كيسلا وحيره قفكي أفرتن مع الموت ولا تما أفرتن مع الموت قفكي إلهي درتي أتكذا جماعنا كتكذا تكبير تأوجه رئيس الله أكبرنا حلالا أنت شردين رئيس راعيننا كو إنه تكذا كم يوم أفرتن مع الموت محو كتكنا يا جماعة محو سمينا يا وحو حلالا يا الله أكبر تأوجه رئيس سد هذا شرد قفك يسوق تكان وحال الله بلن قاد الله بارن كو كتبت له براءتان ورا لبا الرمود oo laba baryeelitaan wala baryeelaya maxaa laga baryeelaya munaafiqnimadii iyo naarta qof afartan maalmood masjidka ku sii socda jamaacada haleelaya imaamkana markuu Allahu akbar yiraahdo Allahu akbar ka daba dhahay qofka munaafiqnimaha uga baqin walidalika waxa laga yaabaa qofka munaafiqnimada nifaaqa marka laga sheekay annaga dhan waa baqaynaa
أما نفاق نمك وجدته إلهي سبحانه وتعالى وكافو جينه منافق نمضى الله قاعد يرى معناه دوام محي بين مشي يجيستو بل أنت تجشد مجوب يلو سكان بحدون تدو وحي اللي جوه آمنة ما خيامي دون تدو مركز دودي ست فاجنما لما إيمان يسوي إيا إصدامرين أنت منافق نما أي خساش اللي ويقانو دوا كفوجانيسا مركز وحي الرعية دنا وبراءك لو النار نار إن لقبت بادينا وح أقوين نار وحن كجبت بادي كرنا أفرتن مع الموت أو حرير أو لقيت كذا جماعة الله أكبر إمامك مركو الله أكبر إليهن الله أكبر لقد دبر قاركود وحي إليهن قفك مركو أنت ولازم حكمة إلهي كبوحية كلمة كسؤال في كسر بحثة وحين نقولنا كلمة إلهي سبحانه وتعالى حكمة ودح دقيقة وقال أنت إن مركا بيد ذهب مركا الله وقره وأنا معنا رنتي دقيقة ماشي سلة أرنك سدحات قفك كسوقي كردينك وحكم ذا إسقى رنتي أكور جلية قصص الأنبياء ونصات المعنى محايا قصص الأنبياء إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المامة مركو كهل كذب وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وحان كاغا ورني أنبياء ضدن قصص تود ما نثبت به فؤادك وحان لابتا ذا كسوغينا وحان نصومرت محاضرة ذي هراء قلبي إنانو فديين إنو ديلينيو إنو متأرجح ويهاي إن ملو سوها كاغا أنا الهين محان كسوغي كرنا لأن شيء مركو سا وأقلم ما مرنا مديك هذا مرنا بيح هذا أدمودي شيء أي دبايلو مركا أي ركرجة يسوى كله ريشة ميل تاجن أو كله وحبها هي وحسوقة وبالانس يجي سكانة إلا هلا أو حكوا من كرت قصص الأنبياء سيد الدعاء دنا أي وسيلة أفراد أيوتها دعاء دنا ولا بها دعاء وأنا ندودي قدام بيسن حوق على صار الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إلهي قلوب تيدها إيلين إلهي هالليحين إلهي وضد التوس خير كا إلهي هكوي عينين إلهي تبت توس النجود توسي قفك إنه سعل ليه وأرم هي مدد له دعاء الله سبحانه وتعالى قلبي قاعد سكنانه اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك إلهي قلوب تأذى الرقرقة ضاعدنا إلين مرنا حقا سي أدا مرنا حقا سي قلوبت أدا لكن قلبي جن الله سبحانه وتعالى الله يا الله واحد جيدا حق طاعة وأرن رنتي تابع شيء أرنك كلا شناد يقفك السوق واحد كم ذا الله سبحانه وتعالى إن لحسه قرآن كحول يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا مؤمنين تعالى الله مركات جوبت الدجال كأجوكتان وعذا وكور كأسكو هيسان oo seefaha la isla dhacayo xaalad xun la marayo fathbutu sugnaada maxaa sugnaanta keeni kara waxa laga fahmayaa shardina maaha عطفنا maaha luqa ahaan laakiin waxa laga fahmay jumlada ka dambayso wadhkurullaha kathiran ilaahay in far badan xusa xaalad xun baa la maraya madax baa dhulka saa u dhacay madaxyaa hoobanaya dad baa gacmaha laga jaraya dhiig baa daadanaya waxa la xaaladda ugu daran baa ilaahay subhanahu wa ta'ala xus maxaa yeelay xaaladda markaad ilaahay xusid xaaladda ugu daran markaad ku sugan tahay waxay arrinka wuxuu muujinayaa iimaankaaga jacaylka ilaahay subhanahu wa ta'ala jeceshahay ninba qofu jecelaha amaanaya wuxuu yiri tadakkartuki warrimaahu alayya nawahilu waxaan ku xusuustay biiri iyadoo warmuhu saa igu soo dul hoobanayaan iyadoo dagaal lagu diray cadawga aan saa u hortaaganahay dagaalameenan ku soo xusuusto biiri marka wax sahlan ma aha bimaana marka haddaan ku xusuusto marka ma yaawo الله سبحانه وتعالى مركات حسوسات حالات من مركات كل جرتد وحسهلا ما ذكرك ابن القيم في مدارج السالكين هذا القروح بدن بوشي وحيري وحنا رجعنا قفله اللي هي هبل الجنبه هي صدرت القران هل واقري مصيبه هي قران هل واقري جنبه هي اد بدنته مره تابي اديك ان اد جنكي مصي غارسيسد بيقول oo la yiraahdo jinka kan masi insani ba haya insi ba ku dhagan in la yiraahdo dhikriga ilaahay xusbi maxaa marka ilaahay subhanahu wa ta'ala jinka uu dhacayaa buu shaydaanka dhulka markuu ku dhaco kadib waxa ku soo hareersanaya shayaadiinta kale ee jinka kale intay isugu yimaadaan waxay leeyihiin waxa haya insi ba haya sida annaga aan u leenahay hebel miirkiisa ma joogo heblo waa caadi maaha qofkii uu isku dardarmay maxaa la jin ba haya masi ba ku dhacay soo lama yiraahdo annagana markaan xuska aan ilaahay subhanahu wa ta'ala badino shaydaankuna uu dhacayaa shayaadiinta kale intay meesha u timaado waxay ku aqrin lahayn ha ku aqriyeen waxay leeyihiin insi ba haya marka jinni ba haya badatay insi ba haya wa urmid qilal dhikrillah hadalka waxa shay ibn qayyim al-jawziyya fi madarij as-salikin
arrinka kale loo baahan yahay qofka inuu sugnaado waddada nin walba uu ku taagan yahay ee diiniga manhajka ka dhiganaysa waa inuu ku sugnaado ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la caabudaa qaar ba hadda waxay ku weydiinayaan anigu madhabkayga ma shaafici ba ma xambali ba waxaan leeyahay salaf maxay yihiin diintan la sheegay waa maxay wadaadana maxay isku haystaan muxuu kana xalaal u yahay kana xaraam u leeyahay culimadu dadku way waashay maxaa la isugu dhagan yahay jamaacaad tiro badan baa jira gruubid fara badan baa jira waxba uu sheeganaya kan waxyaabahaas oo dhan aad laga baahan yahay inaad kala huftid waa inaan adduunyadan aadan ka tegin adoon ogeyn nacam waa laga yaabaa inay kugu adkaato inaad kala saartid fariiso meesha culimadu ay ku kala saarayaan ogow waddada aad ku taagan tahay waxa ay tahay maxaad ku dhiman doontaa kelimata laa ilaaha ila allah macnaheeda makaa daadegay ma fahamsan tahay manhajkaagu muxuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la caabudi jiray waa caabudaya miyaad leedahay bal waxay culimmada qaarkood ay sheegaan dad lagu sheegayo culumo inay waxaa ka wanaagsan bay yidhaahdeen cajaa'izu nisaanbuur bay yidhahdeen dumar deganaan nisaanbuur oo cajaa'iza oo gaboobay ilaan maxaa yeele qofka marka uu meelaha kale aanu faraha aanu la gelin uu ku dhinto diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisa uu ku beero wuu ogyahay wax walbuu kala saari karaa marka maanta wadaadada ha u soo jeedinoo ha dhihin iyagaa khaldan kutubtii baa tiro badatana ha dhihine khalalku wuxuu ka jiraa waatanu ninkii uu yidhi shaacirka ahaa naciibu zamaanana waalcaybu fiin waxaan wax ka sheegaynaa zamanka laakiin caybta annagay nagu jirtaa marka arrinkaa waxaa looga gudbi karaa qofka isaga wax barta ogow waddadaa ku taagan tahay mas'alada aad qaadanaysid ma sax baa mise sax baa wadaad kastoo mikrofoonka ku qaata wuxuu kuu sheegay waa inaadan dhegaysan hadduusan daliil kuu sheegin maxaa u daliila aayaddii aaway xadiidkii aaway maxaa u daliila waa la sheegay ilaan intaa waxaa maqlaysaa nin aayad buu sheegaya mid kale aayad buu sheegaya labada yaa saxsan adaa laga baahay inaad ogaatid wey maxaa yeele haddaadan hadda kala ogaanin waxaa laga yaabaa adoo mutazan sugnayn inaad waddadan adduunyada ka tagtay dhibkeedana leedahay arrin kale wuxuu yahay arrinkan waa arrin muhiima waxaan u baahannahay wax lagu magacaabo tarbiya tarbiyadana shuruuddan waa inay wadato kow tarbiyadu waa inay cilmiyeysan tahay waa inay iimaan ku salaysan tahay waa inay tartiib u socoto arrinkaa wuxuu u dhacayaa dadka wax bara wuxuu u dhacayaa ducaadda wuxuu u dhacayaa dadka ahlu khayrka ah wuxuu u dhacayaa dadka maraakista islaamiga dadka ku tarbiyeeya nin walbaba jamaaca walba maalin bay dhaqaaqday qof walba maalin buu dhaqaaqay wuxuu sheegaynaa baa layidhi waa muhiim tarbiyada dadka aan ku tarbiyeynay in horta inay iimaan noqoto in ilaahay lagu xiro waa inaan bini aadamka la isku xirin qofka waa dadka markuu wax u sheegayo ilaahay ku xir adiga isku xir sheekha waa inuusan isaga dadka isku xirin waa inuu ilaahay ku xiro uu yiraahdo ilaahay ka baqa ilaahay markay ka baqaan kadib ixtiraamka iimaanaya laakiin markuu qofku isku xiro shiiqiyaa kuu jeeda markaad meel maraysid waxaan maqli jirnoo kale kacbadu ku soo tukadaa intuu yimid maanta dhan hawada marka lagaa qabsado oo kontroolka lagaa qabsado meeshaad isaga ka baqaysaa taa horta ma soconayso kow الأمر الثاني dadka markaan wuxuu sheegayna waa inaan cilmi wax ugu sheegno waxa aan sheegayno قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على الله على بصيرة أنا علمي كتاجا وأنا علمي قفك الله هدوس علمي الله هنا wuxuu sheegi lahaa runtii waxay noqonayaan wax runtii aanan saa u qiimo badnayn bay noqonayaan الأمر الآخر shardiga kale loo baahan waa maxay tarbiyada waa inay noqoto tarbiyo waaciye ah wax meelayn karta wax weelayn karta dadkii meel dhigi karta mutadarridna waa inay noqoto dadka hal mar waa inaan diinka man loogu wada sheegin qofkii tartiib kan ka sax marxalada kale u gudub marxal kale u gudub tarbiyada qofka markuu ku soo tarbiyaysan biidillah subhanahu wa ta'ala wanaagsan dadku wanaagsanaanaya biidillah walidaalika shabaabkii dhalinyaradii ku soo tarbiyada saasoo kale ah ee noocan ma la yaqiino masaajidda ku xirnaa oo khayraadka ag fadhii jiray culimada oo qalan rasaadka ka daba wadan jiray oo kutubta saa u dhexgeli jiray sida aboorkii oo kale waa la ogyahay nataa'ijta ay yeesheen qolima hal mar diinka lagu soo daayana waa la ogyahay meeshay mareen isku mid maaha marka labadaas arrimood waa in marka la kala saaro arrin kale aan u baahannahay wuxuu yahay inaan ku baraarugno tarbiyada waxaa muujinaya khabaab عمار بلال يا سجى هذين تربية وناكسن أنا هيل لهين وكل أرد لهين ولذلك وحن كل أجنا وحن أجاني دجال كي حنين مركور دعي وصل الرسول صلى الله عليه وسلم عدد فربضان ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت مرك الليل دتكي مركا إسلام كصاقله أو تربية إيماني جاها آن هيل مركب وكلا يعني ولا في الأرض رسولك كل يسمى ماشي تاجن يلا سو استاجن أنت مؤمنين تهذا تربية بس بتاهل هذا مركي مصيبة اعتماد ولا إن جاءهم نصر من هدي مصيبة اعتماد
qofka iimaankiisu uu sugan yahay uu sugnaanaya wax kasto la gaarsiyo diyaar uma aha inuu dhaqaaqo laakiin inta kale waa maxay wala kala ordaya ilaahi subhanahu wa ta'ala saan ugu deyn maayo liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib ilaahi uu kala saaraya dadkoo dhan ta kale waa inaad ku kalsoon wadadan aad marayso waa inaad ku kalsoon tahay haddaadan ku kalsoonayn shaki uu kaaga jiro waan ogaan doonaa shakiga saameyntu yeelan doona maxay la qofka markay naftu ay ka baxayso haddaad ka shakisan tahay wadada aad ku taagan tahay naftu markay ka baxaysana shakiga uu kula socon doona dibkeeda leed waa inaad shakiga hadda aad ka baxday say kaga bixi kartaa cilmi iyo barashad kaga bixi kartaa biidnillah subhanahu wa ta'ala waxa qofka iimaankiisa suga wadada ilaahay ku suga isagoo dadka diinka ilaahay ugu yeera culimadu waxay dhihi jireen ilaahay subhanahu wa ta'ala ugaga baqdid horta waxa taqaan dadka u sheeg al-amr athani haddii xataa adiga nuqsaan ay kugu jirto waxaad isku ogtahay salaadada inay galabgalabta waxa ogtahay noocan waxayna isdaba marisid adoo saa isku og dadka u sheeg waxa tirada salaada waa in la toosiyo arrimahan la isdaba marina waa in la joojiyo maxay waxay yiraahdeen al-imam al-qurtubi wuxuu leeyahay fi tafsiirihi dadka khamrada cabaya buu wahum yata'atuna al-ku'us iyagoo khamrada isu shubaya waa inay yiraahdaan ilaahay aan ka baqno maxay waxay noocan ma shayga markaa sheegtid adoo kugu soo noqonaya biidnillah kelmadda khayrka maanta markuu qofku ku celceliyo marka dambe isagay saameynaysa waan ognahay inta soo ducaad bay saameeyay wallahi alhamd waa muhiim ha quusan hadhiin adaa shalay sameeyay khalasaas oo kala maanta sidee dadka hor istaagi kartaa hadhiin sii soco ilaahay subhanahu wa ta'ala u sheeg waxa tiraahdaa waxa dadka inta la hadashay waxa tiraahdaa ilaahay uga sheekeeyo ilaahay ku xir inta wadid biidnillah subhanahu wa ta'ala ku sugaya al-amr al-akhar الالتفاف حول المثبتة أو حول العلماء إنجيز كلا فريست علماء مركز مصيبة اعتماد ابن القيم وحي مركز مشاكل ويماد مركز جهاد كلا جليو مركز حالات ضعيف حنتها وحن قرب استاجد علماء ولذلك وحن أول من جنبير ابن تيمية وشيخ سيها إسقى مركز ناشك أو تاريخ ناشك أو آياته ناشك نصد أن الدقي جرته ولذلك هو مهم إن فهمان ذاتك الدعاء دين كان مضح على كان سنة oo nin walba uu rabo inuu isaga sheekh isku noqdo nin walbana uu rabo suu doonto sheekhi ka hadlo yiraahdo wad khaldantiina yiraahdo waa ku dhamaatay yiraahdo waa inay fahmaan diinkan inuu leeyahay meel laga qaato iyo meel la maro inuu leeyahay tafsiir inuu leeyahay manhaj gaar oo loo turjumo inuu leeyahay inuu fahmo saadartay markay mushkilo ay timaado iyo markay dhacdo ay jirto waa inaan laga fogaano culimadiyo nin walbana qasab maaha ina qofka soo hor fariisatid sheekhaad isleedahay waad ku kalsoon tahay ag fariiso wax ka dhageyso waa muhiim waana habka waxyaabaha ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka ku sugi kara kamid tahay waxaan baahanahay inaan ogaano ama waxyaabaha dadka sugi kara waxa kamid ah qofka inuu ku kalsoonaado in ilaahay subhanahu wa ta'ala hiilkiisa iyo gargaarkiisa si kasto u soo daaho maalin uu iman doono wa ka'ayyin min nabiy قاتل معه الربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين بدنا أنت النبي قرب كي تاجنيد الدجال كجشة دب بدن باكو يمد دباتوين فرب بدن با يسقط بتمد ومع ذلك فما وهنوا ما يندبعن من ضعيف نجيل المجلين ما الله بلبين بل ويسقنا ذن إلهي نوحي لجرا قليها سقان الصابرين تا نصر إلهي وإيمان دونا أما هصادها لا شك أن المستقبل لهذا الإسلام أنت مركم كسب بحن وحنوجد بين قيبتي سد هذا كسر جبينهن ولا حريرته قفك مركي آخر ساء السوق فلو طلبات الله بعدنا ومرة وددي آخر ده سسحل هاي نتيجة كسب بحي سواء نقنسا خاتمة دي سئني ونكسنات خاتمة حول الجيد قفك وكل مرة علماء الوحيد هذا حسن الخاتم مركم كهلين هبل وحو كل انتحالات ونكسن waxaan u rajaynaynaa janno marka la leeyahay qaatimada wanaagsan waxay yiraahdeen qofka waa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala u waafajiyo intuu sadhiman ka hor amal khayr badano ka fogeynay ilaahay caradiisa qofba waxa arkaysa suu adduunyada u qasayo oo mutaaruk salaad u yahay oo shaarib khamr u yahay oo adduunyada rogay waxa laga yaabaa dhimashiis markay 2 sano ay ka harsantahay inuu noqdo qof ilaahay subhanahu wa ta'ala masaajid ku xiran maxaa la xadiidkii ahaa qofku suu wanaaga u wado aakhirka wuxuu ka dhigayaa wuxuu dhacaya xagga ay xumaanta ama xumaanta suu wado wanaag u baxaya marka leeyahay xadiid khatartiisa lahu ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanay inuu nasugo xadiidka marka culimada marka waxay leeyihiin khaatimada wanaagsan waa qofka inuu ku dhinto xaalad wanaagsan oo ilaahay raali gelinaysa kana fogeynaysa carada ilaahay waxa soo aroora marka hadii ilaahay uu adoonka uu la doona khayr adoonkaasi waa la shaqo geliyaa
markaasay weydiiyeen saxaabadu waxay yidhahdeen kayfa yastacmil shaqagelinta maxaa loola jeedaa markaasaa waxaa la yidhi yuwaffiquhu lilcamali الصaalixi qabla mowtihi intuusan dhiman ka hor ba ilaahi subxaanaه wa tacaala wuxuu waafajinay camal khayr labada sano ugu dambaysa 10 sano ugu dambaysa 30 sano ugu dambaysa 5 maalmood ugu dambaysa ayaa waxaa la yidhi qofkii ay taa'ib waana khaatima ilaahi subxaanaه wa tacaala ilaahay noo suubi waa khaatima aad iyo aad wanaagsan الله قرآن كوحة وكير إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون انت وإله انت الرمي توصنان تلقاها العرق توصنان ثم استقاموا حكاها لسا قيبتي هدا نكسوها لنا ثباتك آخر كمركة لقارو النفس ضد مركة يكب حيسو نفط مركة يكب حيسو وحا سودة دقيسة ملائكة وحلا ورهم مرقوننا كوب بشاريس الجنة حديث waxaa soo aroray rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay Bukhari uu wariyay wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam man ahabba liqaa Allah qofkii jeclaada inuu ilaahay la kulmo ilaahayna qofka la kulankiisa qofkii naca inuu ilaahay la kulmana ilaahay uu nacaya isagana inuu la kulmo Aisha waxay tiri ya rasuulallah ilaahay la kulankiisa waa dhimashay annagoo dhan dhimashada waa nacayna ya rasuulallah markaas yiri maya yabnat as-siddiq saa ulama jeeda buu yiri waxa ula jeeda qofka muuminka ah marka uu geeriyoonay waxa loogu bishaareeyaa ilaahay raadi ahaanshihiisa iyo jannada saadarteed markii wuxuu nafsadiisu ay jamaanaysaa oo hanqaltaagaysa in ilaahay la kulanto gaalkana markuu dhimanaya waxa la tusaya meeshuu naarta ka gelay saadarteed wuxuu leeyahay wada marka farqigaas ula jeedaa buu rasuulka sallallahu alayhi wasallam waana arin macnaheeda marka leh wuxuu yiri qofka Abu Ubayd ibn Salam wuxuu yiri qofka inuu dhimashada nooc wax mushkilada ma lahan buu yiri laakiin waxa daran buu yiri la diiday inaad tiraahid adduunyadan ka fadilay aakhirada laakiin qof walba uu jecel yahay inuu sii noolaado sanawaad oo noocan ma uu sii jooga ilaa sanawaad qofkaas uu jecel yahay seen ku ogaan karaa markaan dhimanayo markuu hebel dhimanayo in khaatimadiisu ay wanaagsaneed rasuulka wuxuu sheegay dhowr calaamadood astaamood qofka laga helo in khayr loo rajaynayo sheekh Nasruddin Albani wuxuu arrinkan ku sheegay kitaab ahkaam al-janaiz buu kaga waran masalada markuu ka hadlayay كو قفك مركو كدنت إسقوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قفك إسقوا له وحال الله رجينا خيره وحال لنا خاتمة يسأد ونك سنته جنة إنه قالنا ورجينا كو نمبر لب قفك مركو جيريونه هدو جيريوده دبن كيسة وديد كده أيوه عرق الجبين كإلا أنتو الصعود قفك وحال الله رجينا إنه أهل الجنة ويها بإذن الله سبحانه وتعالى ختم سوى نكسنت وعلامات وشيء رسول محمد صلى الله عليه وسلم حالة سدحات قفك هدو جيريوده مالين جمعة أما هبين جمعة وحا حديث أوتيل مامي رسولك صلى الله عليه وسلم إن قفك إساقا خير لو رجينا يو أي أبضانتها إنه إلهي سبحانه وتعالى خير وافجيه قفك أنك أصحيح من جمله لكن رسولك وحو نوشيك قفك إساقا إنه ما خير وكسعوده وحان أرجينا خير waxaa badan kumaankun iyagoo faajiriin heesay maalin jimcaha dhigaya ma aragtay show dhigaya dhintay baa jira taasu marka ma aha macnaheedu ma jimca kaliyo dhintay jannadu hore ka galay macnaheedu ma ama jimcaha isku beegtid oo kaniiniga taamiilka aad cabtid ma oo tiraad maalin jimcaha isku beegaya ma taasu macnaheedu ma jimcaha hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala ku waafajiyo alxamdulillah ilaahay ku waafajiyo waa nicmo ilaahay ugu mahad celi laakiin waxa loola jeedaa qofka xaaladiisa horena meesha ku jirtaa kale wuxuu yahay qofka markuu wadada ilaahay ku shahiido duulaan buu ku jiraa wadada ilaahay buu ku jiraa taas hadalka ma taagna daacuun baa dhacay daacuun baa yimid cudurka daacuunka leeyahay faafay qofka daacuun buu u dhintay wuxuu ka mid yahay dadka wuxuu ku jira shuhadada ee jannada loo rajaynayo cudurrada caloosha ku dhaca ayaa qofkii ku dhacay habkaa buu ku geeriyooday ama saas uu u geeriyooday ama inta darteed uu geeriyooday waxaa loo rajaynayaa inuu ahlu janna noqdo biidin Allah subhanahu wa ta'ala qof baa wuxuu dhintay soo dumay waxaa loo rajaynayaa biidin Allah subhanahu wa ta'ala khaatimadiisu in wanaagsan tahay loo rajaynayaa waa khaatimadiisu aad bay wanaagsan tahay walaalika rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabada markuu weydiiyay iga warramay shuhadada maxaad u taqaanaan طبعا saxaabadu waxay u yaqiineen shahiidka ninka wadada marka dagaalka la joogo kaliya shahiida marka siramaya hadda saa tiraahdaan shuhadada ummadayda aad bad u yareeyeen laakiin waa badan yihiin muxuu tilmaamay qofka la duro noocan ma inta wax ku dhacaan dhintay qofka caloosha u dhinta qofka biyaha ay la tagaan maashooda qofka guri uu ku soo dumo intaas oo dhan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lagu yaqaan qofka noocan ma biidin Allah subhanahu wa ta'ala khaatimiisu ay wanaagsantahay
dumarka iyagu si gaara loo tilmaamay waxaa la yidhi intaana way la wadaagaan waxaa u weheliya gabadha umul raacata haweeneeda umul raacata amaba noocan ma u dhimata uurka waxay ku sida darteed hadday saa ku dhimatana khayr baa loo rajaynaya inay biidni illah khaatimadeedu wanaagsantaho janna loo rajaynaya biidni illahi subxaana wa tacaala intaa waxay muujinaya axaadiida waa axaadiida muujinaysa in biidni illaahi subxaana wa tacaala janno lagu geli doono waxyaabahaas oo dhan qofka hadduu gubto ama guriba qofkii ku gubtay dad baa ku dhintay qofka hadduu oradhin mu'min ahaa khaatimadiisu wanaagsan tahay xaalad wanaagsan buu ku dhintay intaa waa intaan hayna nusuusta soo aroortay muujinaysa qofka haddii xaaladda uu ku dhinto in khaatimadiisu ay wanaagsan tahay xadiidka tilmaamaya qofkii jacayl u dhinta waa ahlu janna kaas waa xadiid jira maaha waa xadiid bog ah kaa marka ma jiro waxyaabaha muujinaya inuu qofkii ahlu janna yahay waxaa muujinaya isagoo maalkiisa difaacaya maalan maalkaaga adoo difaacayaa dhimatay nafsadaada adoo difaacayaa dhimatay maxaarimtaada adoo difaacayaa dhimatay ahlu janna taa biidni illahi subxaana wa tacaala iyo wixii la mida waxaan marka muujinaynaa dadka xusnu lkhaatima dadka marka qofku markuu wanaagga si u soo wado aakhirka markii la gaaro bishaaru dareemaya wuu bishaaraysanaya walidaalika bilaal ibnu rabaaxa markii la gaaro xaaladuu dhiman lahaa oo ay islaantiisuna meesha ay fadhido ay aad iyo aad u walwalayso leedahay waa bilaalah bilaal baa naga tegi doona ay leedahay isagana wuxuu leeyahay wuu faraxsan yahay wuxuu leeyahay gadan nalqa alaxibba muxammadan wa saxbah berri waxaan la kulmi doonaa dadkii aan jeclaayo nebi maxamed asxaabtii aan la kulmi doonaa meeshaas u inqaltaagaya bimacnaa waa adoo yidhi oo kale berri baan dhoofi doonaa dadka inta aan mogaa baan la kulmi doonaa saad u faraxsan tahay ka badan buu faraxsan yahay gadan nalqa alaxibba muxammadan wa saxbah meesha waxaa noo muuqda haddii la tusi lahaa siduu xadiidka noo sheegay naar la tusi lahaa uma hanqaltaageen mana jeclaadeen inuu ka tago wuu iscelin lahaa laakiin waxaa u muuqda khayr baa u muuqda cumar bin cabdilcasiis markii la gaaro xaaladda uu dhiman lahaa ayuu dadka ag fadhiyo dhan wuxuu yidhi war iga baxa dhammaantiin baxa halii daay buu keligay aan fariisto qolkaa keligiisa loogaga tegey dadka meesha joogay waxay yidhahdeen waxaan maqalnay isagoo leh marxaban bikum soo dhowaada dad waxaan aragnay insina aan u akayn makhluuqaad insina aan u akayn jinna aan u akayn oo uu la hadlayaan aragnay arrinkaa marka wuxuu muujiyay isagoo faraxsan oo dadkii soo maqlay وانا ضدكي مركه تاريخ مركه عمر بن عبد العزيز نينكي اللي هو الخليفه الخامس لهذه الامه اللي يروي الرساله لما بمعنى waxa ula jeeda qofka marka uu khayrka uu daa'ima daqiiqada ugu dambaysa wuxuu dhiman doona isagoo xaalad wanaagsan marka ku sugan imisa dhimatay oo sujuudsan waxa la hayaa qaarkood iyagoo quraanka aqrinay imisa nafsadu ay ka baxdeen imisa la hayaa iyagoo ilaahay subhanahu wa ta'ala hortaagan oo khayrkii yani وهكذا دواليك إلى وكوافجنا وهدي أتاه أهل المؤمن بإذن الله سبحانه وتعالى في إيمان هذا محاكينا مركا إن جارنا هير إن مركا نفسده إن نجب حيسو إن نجب هذا إنه حالة ونكسن كسوكن سيهو جاري كرنا وهم جاري كرنا دور الموت كو هرته جانسن بالله جباه إلى إن دو جانسن طلبات دعاء بضي ومسألة هذا صوشنا أرنك سدحات وضد هذا كتوصنو أرنك أفراد إلهي ملا ونكسن ملايو مر والبوا خير كالرجاء ولذلك إن السلف كبيرة أيا اللي نفسده كابح دونته مركز سيري كنتن صنع أيا إلى عبودي ما أنت وحلا جارة وقتي أن لكل ملها خير نور رجينا يا بير وين هذا نقوصا هذا دهين خلاص نار بد جلسة أرن كلو حلا جابه الله كعبس رون شيجس توب موت كاد حسوستي وهكذا دواليك وعنكسو جبينا نقطة لحريته خاتمة وانا أكسن وحكي سهر جدا خاتمة حن إلهي نجبت باديو oo qofka inuu xaalad xun marka uu ku dhinto hadii inta laga waayo leeyga waayo qof kasto muslim laga waayo xaalad xun ku dhiman doona walidalika al-hafiz ibn rajab kitab al-ulum wal-hikam wuxuu ku sheegay abd al-aziz ibn daawud oo ka soo wariyay wuxuu yiri waxaan goob joog ahaa biirinin markay nafsadu ay ka bixaysay lagu celceliyo la ilaha illa allah la ilaha illa allah asna uu leeyahay waan ku gaaloobay iga daaya wuxuu yiri ninka markuu geeriyooday kadib baan dadkii waxaan weydiiyay taariikhdiisu ninkan laa ilaaha illa allah da diiday muxuu ahaa markaas waxa la ninkan khamradu cabi jiray khamra abu ahaa shaarib khamr buu ahaa saadarteed ilaahay ma waafajin ibn qayyim wuxuu yiri waxaan u soo leeyahay laa ilaaha illa allah laa ilaaha kalimadii diiday aakhirka markii dib loo baaray markuu geeriyooday waxa la ogaaday nin ribada ku tacaamula inuu yahay riba shaqada wax kale kama shaqeyn dadku wax dul saarta isaga riba ka faa'iida dadkan uu dul saarta meeshan markaan joogno arrin khatarow xaaladan markaan meeshan aan joogno waa inaad hadda ku xisaabtantid
aad ku fakartid waxa ribadan aad ku jirto hadda waa inaad dabaabushaysid saad kaga dhex bixi lahayd waa arrin muhiim wey wa ilaa waxay yeelan doontaa fi nihaaya suu'ul khaatim ama adigu leeyahay sheekh fulaan baa waxaan ii fatwood adiga ku jirtaa laakiin suu'ul khaatim ee dhibkeeda leedahay ibn qayyim wuxuu yidhi waxaan kaloo u soo joognay waxaa kaloo la sheegay buu yidhi nin markay nafsadu ay ka bixaysay laa ilaaha ila allah markii la yidhahda isagana wuxuu leeyahay wuxuu yidhi taatina tantina buu leeyahay taatina tantina ibn qayyim wuxuu ka wadaa wuu heesayay buu yidhi heesaasuu qaadaya taatina tantina buu qaadaya buu yidhi maxaa yeelay markaan dib u raacnayn waxaan ogaa nin heesaha ka helay inuu yahay aad buu heesaha u jeclaa mar qolyahan dhagaha waxay ugu jiraanoo maantana heesa dhegaysanaya moobiilka ku duuban markuu kuu soo dhaco iyo guriga markaad ku jirto TV-ga aad heesihii aad kala socotid iyo cajaladahan gawaarida noogu jira iyo CD-yadan haaday waxaa laga yaabaa maadaama qof walbaba waxa uu jecel yahay ayuu ku dhintaa waxaana lagu soo saaray xaaladdu ku dhintay kullun yub'athu calaa maa maata calayhi xadiidka rasuulka sala allahu calayh wasalam marka xaaladdan hadda aad ku sugan tahay waxay u baas bixi doontaa xaaladdaada dambe khatarteeda leedahay marka wuxuu yidhi ibnu qayim meeshii laa ilaaha ila allahu laga rabay واركتي تاتنا تنتنا ما قينا صدق بعد إيه وليه لو أو مركز سوء العلنية هذا القياس كرمه وهكذا دوالي مركز وحوليه ابن القيم أرنت أبو كهل ما كاني قفك إنه حالدا وكل أنتو يدو لله لا إله إلا الله كلمة دافكي سيسوي مرويس وحوليه قفك كان يسوق أود له قوة له بو شيطان كيسك علم واي يسوق طول دعي أو تقدرن أو حرارك lugihiisa la isku duwayo indhihiisa la isku keenayo miyaa laga yaabaa biiri inuu shaydaan iska celiyo biiri isagoo awood leh meesha adoo awood leh oo qosliya dhagaha waxaad gashatay muusiq waad boodbooday rib khamraad cabtay qaad baad cuntay adduun baad qasay aakhirka marka dhulka dhacdid ma xarabtaa in shaydaan iska celiyo macquul ma han biiri marka lama yaabi karo biiri qofku inuu xaaladan marka uu ku dhinto biiri maxaa keena gabagabadii in khaatimadeena ay xumaato maxaa keeni kara waxa keeni kara caqiidadeena hadday xumaato khaatimadeena xumaanaysa ilaahan ka mangalina qofka inuu adduunyada isisiyo raaco oo aakhira aanu milicsan qaatum xumay keentaa inuu qofka wadadii toosnaad marka uu ka leexdo waxa kada dawaale arrinka ugu daran ku soo gabagabeenayo macaasida la daa'imo qofka shayga macsina waxa lagu magacaabaa qofka markii uu macsi uu maqlo markii uu zina kaliya la aadaaya ma ahane shay kasto ilaahay lagu khilaafo manhajka ilaahay lagu khilaafo oo wax kasto ilaahay diinkiisa lagu garab maraa macsi lagu magacaabaa qofka markuu daa'imo taas ayaa khaatim xumo keeni karta ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu khaatimadan hagaajiyo ilaahay waxaan ka magan galaynaa inuu khaatimadan xumeeyo ilaahay diinkiisa ha nagu sugo rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa sahbihi wa sallam wa billahi tawfiq jazallahu shaykhana sheekh علي محمد صالح محاضرة قيم كاه الله وحان كبرنا سبحانه جل وعلا إننا إنه نبو أنفعه وحبذنا نولش إنه يكبدش إن شاء الله محاضرة وحان كحجرنا لبا سؤالات وموضوع على حديدة سائلك كواد علي هاي شيخ ما دام دول كان قربك أن كنا والله هاي دول قبل لو سلي نولشان أدونك وحقرشانا أن كلها نولش آخره هذا وقف كنا ولا مسلم كاه maxaa ka caawin kara in uu u diyaar garoobo daarta aakhiro bismillaah طبعا waxaa moodaa in muxaadarada qaybteeda labaadba wax kale inaan ka hadlino ah alwasaa'il almuciina ala الاستعداد ليوم الرحيل maxaa qofka ku caawin kara inuu u diyaar garoobo waxaan niri kow Allah tacaala wadada umar ilaha horta inuu qofkii garowsado wadada inuu ku kalsoonaado inuu taacada ilaahay la yimaado inuu san leexan in uu culimada aanu ka ag fogaan in qudwa saalixa qofku ku daydo oo wanaagsan uu diinkiisa ku kalsoon yahay inuu yeesho in meelaha khayraadka lagu wada aanu ka dheeraanin in muntadayaadka la isugu yimaado aanu faaruqin maanta waxay la tahay dadkeena Yurub jooga في الغرب جوجا ما لها كوبت بادي كرنا إنها تها المراكز الإسلامية مساجد خيرات كلا وضع منتديات كانوا كلا هدي كل ما خلط ونقرد عن إنسان سوبر الجنة إلهي سبحانه وتعالى وأنا سجيا عمل فلكين مركان على جهله أنتي مركان محاضرات عن قصص شيخنا وإلى هنا وبالله التوفيق جزاك الله خيرا سؤال الله بعد سألك حلي هاي شيخ محوي هاي أريق السلف waxaan maqalnaa salaf iyo khalaf maxay ku kala duwan yihiin
casriga nooli ma noqon karaa salaf بسم الله على بركة الله waxaan moodayay in bilowga kelmadda aan ku soo sheegay erey bixinta kelimad salaf luqada carabiga salaf keliya kadaa kontekska aan soo dhex gelinay ka soo saar kelimadda sideeda haddii aan qaadaa dhigno wax tagay weeye salafa السالف wax tagay weeye salaf lagu magacaabo way naga horreeyeen weeye marka salafka waa xiqba zamaniya waa waqti zamanka ka mida oo hore u soo jira weeye yani maalan wixii shalay dhacay salaf waa naga horreeyay annaga daraad wixii dhacay waa salaf muxaadaradii ugu horreysay ee meeshan ka baxday iyo muxaadarada marka la isbarbaray tii horreysay waxay tan u tahay la isu aaneeyo salaf bay u tahay salaf wixii horreeyay weeye laakiin marka culimmadu ay soo celceliyaan salaf saalix markay soo celcelinayaan waa mani iyo waddadii ay mari jireen dadkii noolaa waqtiga rasuulka sal alla alayh wasalam rasuulka iyo qarnigii ka dambeeyey waa tanuu yidhi khayru lquruuni waqti la noolaada waxaa ugu khayr badan waqtigaan aniga noolahay kadibna waxaa ku xiga waqtiga aniga iga dambeeya kadibna waxaa ku xiga ka kale culimmadu marka waxay leeyihin rasuulka wuxuu sheegay muddo 300 oo sano buu sheegay waa 3 qarni saddexdaa qarni sida diinka loogu camalfali jiray wixii diin ahaa unbaa maanta diin noqon kara ilaahna loogu dhowaan karaa wey dambeeye adduunku wuu isbedelay hawaa soo gashay kursi baa la isku dagaalay siyaasad baa timid xukuumaad baa yimid xagga umowiyiin u dhaceen xagga cabaasiyiin u dhaceen faatimiyiin baa yimid cuthmaaniyiin baa yimid adduunka looltan buu galay waa la kala jabay wax kasaa soo galay bidac fara badan oo diinka aan ku jirin baa timid laakiin diinka piyuurka ah oo saafiga ah waxbana aanu ku dheehmin ee sida uu u soo degay qadtan tariyan ahaa waqtiga un baa la helaya saa darteed baan waxaan leenahay mar walbaba war si diinkan loogu culummadan ishaysaysto le kan baa saxsan kan baa khaldan iyo guruubyadan maanta nololtan ku jiro kuwan baa saxsan kuwan baa khaldan in aan niraah war waxa saxda ah iyo diinka saxda wuxuu ku jiraa dadkaasay u fahmeen aniga ku dayano saa darteed baan hadalka waxaan badinay inaan nahno cumar ibn khadaab baa sidaas sameeyey cuthmaan baa sidaas sameeyey abubakar baa sidaas sameeyey maxaa yeelay waddadooda wadda saxa khalafna waa waqti zamanka ka mida wey saa darteed heer ay labada ruuxba ama labada gruubba qolana waxay noolaayeen waqti hore qolana waqti dambe ay noolaayeen kullama naga sii dambayn doona annaga khalaf noo noqon doona annagna salaf baan u nahay laakiin salafka aanu ka hadlayna istilaaxiga waa maa kaana calayhi salafu hadihi alumma oo ah alquruun almufadala ee ah waqti الرسول صلى الله عليه وسلم والقرن الذي بعده والقرن الذي بعده والقرن الذي بعده وإلى هنا بالله التوفيق جزاك الله خيرا sheekh cali muxaadaradii laba su'aalood ka dambeeyey intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa